madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirada heer federaal iyo heer state, xildhibaanada labada gole, culmaa u diinka Soomaaliyeed, odayaasha dhaqanka, haweenweynaha Soomaaliyeed, saxaafadda, dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirweynahan qaran. mar labaad iyo saddexaad, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waxaan akhrinaynaa warmurtiyeedkii shantii beri loo fadhiyay ee wasaaradaha arrimaha diinta iyo awqaafta heer federaal iyo heer state ay ka soo saareen warmurtiyeedka shirweynaha wadatashiga qaran ee la dagaalanka iyo ciribtirka fikirka khawaarijta muqdisho 24 ilaa 29 bisha Oktoobar 2022 oo waafaqsan Rabiicul Awwal 28 ilaa Rabiicul Thani 4 1444 hijrida. بسم الله الرحمن الرحيم. بيانك شروينها. قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هردعا شروينا وضتشئة أو أي سوق وقابسي wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayna ka soo qayb galeen wasaaradaha arrimaha diinta iyo awqaafta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, gobolka Banaadir iyo culmaa u diinka Soomaaliyeed socdayna muddo 5 beri ah intii u dhaxaysay 24 ilaa 29 bisha tobnaad 2022 oo lagu la fagurayay hanaanka ugu wanaagsan ee la isaga kaashan karo ka hortagga iyo ciribtirka fikirka khawaarijta ee ragaadiyay ku dhaqanka shariicada islaamka iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed ayaa dood iyo aragti wadaag dheer kadib waxaa la isla qaatay qodobadan soo socda. Number 1, in la dardargeliyo lana taageero la dagaalanka khawaarijta casrigan oo la magac baxay al-shabaab iyo daacish. Number 2, in ay xaaraan tahay dhaqaale kasta oo la siiyo khawaarijta maxaa yeelay qarash bixiyaha iyo qaraxwaduhu waa isku dambi. Number 3, in kooxahan sharwadayaasha ah loogu yeero magaca khawaarij maanta wixii ka dambeeya iyadoo oo la cuskunayo fadwooyinkii ay soo saareen culmaa u diinka Soomaaliyeed shirweynayaashii 2013 ilaa 2019 ee Muqdisho. 4, in laga hortago wax kasta oo ka hor imaanayo shariicada islaamka iyo dhaqankeena suuban sida fisqiga, anshax xumada, maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyo in si qaldan loo isticmaalo baraha bulshada. 5, in la taageero loona sameeyo qorshe iyo siyaasad qaran oo lagu tayaynayo laguna horumarinayo dhammaan xarumaha lagu barto diinta islaamka. 6, in la dhiso sanduuqa zakada iyo hay'adda awqaafta qaranka Soomaaliyeed. 7, in la qabto shirweyne qaran oo ay ka soo qayb galaan culmaa u diinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dal idibid si looga tashado arrimaha taagan gaar ahaan
كإلالينتا دينت إسلامتا أفكار تقلعان. سديت إن مدوكو بنقذهد لغو لما يسترو حيرارك لنا مرسيو هبراعيدا لغا مارمانك اوه اسمها قولها سارة علماء الصوماليات oo ay u dhan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah kaas oo noqonaya marjaca diiniga ah ee rasmiga ah ee dalku yeelanayo looguna laabanayo fatwooyinka sharciga ah iyo arrimaha hadba soo kordha oo loo yaqaano nawaasisha. sagaal in arrimaha xajka si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. 10 shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah khawaarijta. 11 ugu dambeyn shirweynaha wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan la dagaalanka kooxahan khawaarijta ee ka been sheegay diinta Islaamka banaystayna dhiigooda maalkooda iyo sharaftooda xurmada leh. wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.